Ciyaaryahaankii hore iyo kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Egan Matsaha ayaa ka hadlay xaalado badan oo markaasi quseeya arrimaha kubadda cagta, waxyaabaha uu u baxay, iyo sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay Macalin Cabdi John oo markaasi ku eedeeyay in ciyaartoyda waaweyn ee magaca ku leh kubadda cagta uu markaasi ka saaray kubadda cagta. Sababaha uu markaasi u soo diriishtay ayaa in ciyaaryahanada uu markaasi madaxa ugu istaagay. Weeraryahankan markaasi ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan soo maray kooxaha dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya, Matsaha ayaa sheegay in Cabdi John uu yahay macalin aan aad u wanaagsaneyn, aan ixtiraamna u haynin ciyaartoyda, sida uu markaasi sheegay. Matsaha oo markaa bartiisa TikTok-ga uu kaga hadlay xaaladaha uu kubadda cagta kaga baxay. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday laacibkii hore ee kooxda horseeda xulka qaranka Soomaaliya Jane iyo sidoo kale naadiyada waaweyn ee dalkeena soo maray Xazazi uu qayb ka ahaa inuu ka baxo kubadda cagta Soomaaliya, waxaana sabab u ah uu yiri Macalin Cabdi John. Sidoo kale Macalin Cabdi John ayaa ciyaartoy badan sida la sheegay ay ka cabanayaan qaarkoodna ugu baxeen arrimaha uu isaga markaasi kula kacay ciyaartoydaasi ay qayb ay ka ahaayeen ciyaartoy muhiim u ah kooxaha dalka Soomaaliya, sababo la xiriira ay iskaga hareen in ay ka mid noqdaan kooxaha dalka inay ciyaaraan. Matsaha ayaa sidoo kale sheegay in uu mustaqbal iyo hami uu ka lahaa inuu sii ciyaaro kubadda cagta, laakiin waqtigan ku habbooneen inuu ku sii jiro kubadda cagta. Waxa uuna baxay arrimaha uu markaasi sheegay dhowaan ayuuna kooxda Egan iskaga tagay laacibkani. horta Cabdi John inuu macalin xum yahay oo ciyaartoyda Soomaaliga inta badankood oo asaga suuqa ka saaray wax xaqiiqo ah waaye. marxaati nool ciyaartoyda hadda way joogaan ayagoo wadanka baagamuudo ku ciyaarna dheeli karaan. Cabdi John si xum oo laqmo oo niijibshay ciyaartoydaas oo dhan way joogaan, marxaati nool ahaya. aniga hadda aad ogtay ay ii jeedin dhibaatada Cabdi John oo ii geystay darteeda boondana iskaga dhaafaa u nacay anoo sii wadan karo. kooxo kale ila soo xiriiray xataa waxa ku yiri bas waa intaan wixii ka dambeeyay booni magaca aan ka sii raashay ma aqaano. ciyaariyaan oo asaga dhibaato u geystane garoomo maba ku sii jirabo sidoo aan taada xasaasiga cawaada daabic ugu horeeyay ninka u geystay Cabdi John oo ahay. ciyaartoy waaweyn ay joogto oo hadda sidoo ahaantii oo inay hadlin oo dad iska qiimo leh oo iska sabray, laakiin marqaati nool waa keena social media soo istaajina dhibaatooyinkaasna ninka u geystay asaga ciyaartoyda waaweyn oo experience ah booni ninkaas u naceen asaga dartiisa u naceen.